تسألوني عن حياتي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وكلمة كوبا وأينو نفتيذا إذن كبا أن إسكو حسوسينينو ويرو كمدا كلمدو إلهي سبحانه وتعالى إنو بوريي دين تيسو أي إنو بوريسي ونلقون كرا تلمامو جود ونلقون كرا نول مالميدكينا ونقون كرا وحين آمنسنهي الله سبحانه وتعالى وأبوري آدمها إنو أسو دجيي وأسو راعيي آدمها إلهي وأبوري قابكي أي نول وعن أدونكا ونولان لهايين مركي إلهي لكل من أرتي يوم القيامة ربي وناكسن وأن عرونين وناقي أي سو سميين سوى عن أغا أبا المريي إن أي لكل مدونان مركا نولشو tanina waa nool aynu maanta ku noolnahay nolol kaloo waartaana way jirtaa waataynu u soconno labadabana waxaynu ka helanaa qaab nololeedkii aynu ugu noolaan lahayn innaga oo aan kufin oon simbirirxan oon dunuub la imanin oo aan mashaakil nololeed aan ku noolayni waxay inoogu jirtaa hadba inta aynu u dhownahay weeraha iyo tilmaamaha inooga imanaya rabbigeena abuuray subxaanahu wa tacaala maanta waxaynu qaadaa dhigayeen wax ka orani alcadlu cadaaladda cadaaladdu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay shahida allahu annahu laa ilaaha ilaa huwa wاlmalaa'ikatu wa ululcilmi qaa'iman bilqisط ilaahay wuxuu ka marakacay subxaanahu wa tacaala jannad qudratuhu ilaah xaq lagu caabudaa isaga maaha ilaah kale inaanu jirin marakaca waxaa raacay oo iyaguna marakacay almalaa'ikatu malaa'igta ilaahay iyaguna way marakaceen waxaa kadaalika ku biiray oo raacay wa ululcilmi intii aqoonta lahayd allaala wixii aqoon lahaayo idinina way ka marakaceen annahu laa ilaaha ilaa hu wuxuu sii waday ilaahaasi qaa'iman bilqisط waa ilaah u taagan cadaalad oo magacyada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo tilmaamihiisa ayaa waxaa ka mid a alcaadilu ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sii wado ilaahay aayado kale wuxuu inagu leeyahay waasamaaa rafacahaa wawadaca almiisaan anlaa tadgaw fi lmiisaan waaqiimu lwasna bilqisطi walaa tukhsiru lmiisaan ilaahay cirka isagaa taagay miisaankana isagaa dhigay ha ku xadgudbina miisaanka ooga marka aad wax kala miisaamanaysaan aad wax kala beeganaysaan cadaalad ku ooga bilqisti walaa tukhsiru lmiisaan miisaanka dhanna yaanu u janjeermin oo cadaalad daro yaana idinkaga iman laba kelmadood baa badanaa lays ag dhigaa alcadaala wاlmusaawaah cadaaladda iyo sinaanta sinaantu waa miro ka dhasha cadaaladda sinaan la-aantuna waa miro ka dhasha cadaalad xumo waa laba qodob oo aan kala hadhin ina allaha yaأmuru biاlcadli wاlإxsaani waإitaaءi di اlqurbى wayanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkari wاlbagyi yacidukum lacalakum tadakaruun ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idin amrayaa cadaalad inaad fashaan ood wanaag la timaadaan iyo samafal waإitaaءi di اlqurbى inta idin dhowna inaad xereerisaan wayanhaa wuxuu idinka reebayaa xumaha iyo munkarka iyo xadgudubka oo dulmi oo bagyi ah yacidukum lacalakum tadakaruun buu ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala alcadaala oo u ah cirka wuxuu ku qotomiyey dhulka wuxuu ku goglay sharaa'ica wuxuu u soo dejiyey kutubta wuxuu u soo dejiyey ambiyada wuxuu u soo diray waxyiga waxa loo akhrinayo diinta waxa loo oogayo jihaadka waxa loo waajibiyey oo idin waxay ku aruurayaan alcadaala alcadaala horey culammadeenu waxay u yidhaahdeen waxa suurtagal ah inay waato dowlad cadaaladda ku dhisani gaalba ha ahaadee
waxaana suurtagal ah bay yidhaahdeen in ay dunto dowlad dulmi u saaxiib ah muslimba ha ahaate waxaan lagu kala tegayaa markaa waxa weeye waa sinaantii iyo cadaaladii waana dhaqan maalintii cumar bn khadaab radia allahu canhu wa ardaah loo keenay xoolihii laga soo furtay wadanadii muslimiintu ay furteen iyadoo la sido isagoo geed hoos jiifa ayaa xoolihii loo keenay markaasuu yaabeen waxaanoo dahabaad soo qaaday oo nabad iyo nabadgelyo ku keentay markaasaa saxaabigii cumar ag fadhiye ku yidhi cumarow markii adiga cadaalad lagaa helay ayaa dadkii aada xukumaysayna xoolihii ummaddu ka nabad galay adna waadigaa geed hoostii iska fadhiya ee aada badbaaday eed nabad gashay alcadaala waa tilmaan meel kasta gelaysa nin baa ubadkiisii u keenay xilligii nabiga salى اllahu alayh wasalam hadiyad ubadkiisii mid kamiduu hadiyad siiyey nebigiibuu ka markhaati geliyey salى اllahu alayh wasalam isagoo ubadkiisii wax siinaya markaasuu nebigu ninkii su-aal weydiiyey salى اllahu alayhi wasalam ubadkaaga oo idil miyaad ka sintay hadiyadan oo ubadkaad dhasho idil miyaad u wada keentay mid walba hadiyad markaasuu yihi maya kanun baan u keenay rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam wuxuu yihi ma ahayn qof ka markhaati kaca oo markhaati been fura ma ahayn buu yihi ilaahiina ka baqa oo ubadkiina sima buu yihi nabi maxamed salى اllahu alayhi wasalam idan rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam wuxuu inoogu celcelinayaa oo ina barayaa oo ay tahay dhaqan inaan ka dhigano sinaanta cadaaladda weliba wuxuu sii gelayaa markaadan caraysnayn uu dareenkaagu degan yahay ee dhibi aana jirin badanaa xadgudub ma dhaco laakiin dhibaatadu waxay timaadaa marka la ismaandhaafo ee ama aada wax nacdid uu nacaasi kugu tarax tago ama jacayl aada jeclaatid ee uu kugu tarax tago labadaa qodob ayaa waxaa ka dhasha cadaalad xumo oo qofkaad aadka u jeceshahay wax allaale wuxuu ceeb leeyahay waad ka indhalaaday qofka aada necab tahayna wax allaale wuxuu sameeyo ee wanaaga ishaadu ma qabato cadaaladuna halkaasay ku jirtaa walaa yajrimanakum shana'aanu qowmi calىa an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa yaana idinku xambaarin nacayb aad dad necab tihiin inaad cadaaladii ka xadgudubtaan ood cadaaladii ka tagtaan oo qof aada necab tahay ood ishaysaan ama adduun aad isku haysaan ama mowqif siyaasiya isku haysaan ama mid bulshadeed aad isku haysaan ama tartan gaara idinka dhexeeyo yaanay kugu xambaarin nacaybkaasi buu qur-aankaasi ku leeyahay in aanad cadaalad farin buu ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala qof aad jeceshahay jacaylka aad jeceshahayna yaanu kugu xambaarin inaanad ceebtiisa arag waanad ka cadaalad fartaa oo kaad jeceshahayna aad runta u sheegtaa kaad necab tahayna aad u qirtaa wanaag wuxuu leeyahay xumo wixii aanan lahayna aanad dhabarka aanad ka saarin waa alcadaala waa sifo uu allah subxaanahu wa tacaala ina barayo nin baa u yimid cumar bn khadaab radia allahu canhu cumar baa ku yihi waryaahe kuma jecli buu ku yihi waa amiiru اlmuminiin waa madaxii muslimiinta cumar markaa kuma jecli buu ku yihi ninkiibaa ku yihi waxba hay jeclaane nacaa aad necab tahay xaq aan leeyahay miyaad iduufsan oo miyaad ii diidi may buu yihi cumar wax allaalo waxaad xuquuq igu leedahay waan ka soo bixi markaasaa wuxuu ku yihi ninkii cumarow iska kaynac buu yihi haddaba jacaylka dumarkaa u ooye eh aniga mar haddii aad ii cadaalad faraysid cadaaladdaa ideeqda ayuu ninkaasi ku yihi alcadaala inaan qofku dhaqan inuu ka dhigto oo hadalkiisa ilaaliyo marka aad caraysan tahay iyo marka aad faraxsan tahayba xadgudubka inaad ka ilaalisid waxa weeyaan ina almuqsitiina calىa manaabirin min nuur dadkii adduunka cadaalad fali jiray hadalka iyo oraahda iyo ficilka iyo dareenkaba ku cadaalad fali jiray yowma alqiyaama waxay ku kor fadhiyaan buu leeyahay nebi maxamed salى اllahu alayhi wasalam kuraasi iftiin ah raxmaanka agtiisay fadhiyaan kuwaasi waa aladiina yacdiluuna fii xukmihim kuwa halkaa fadhiisanee dhaarta yowma alqiyaama waa kuwii cadaalad la iman jiray markay wax xukumayaan xukunka ama kii maxkamadda ha noqdo ama kii gurigaaga dhexdiisa ha noqdo ama ha noqdo haddii ay bukuureen kii ubadkaaga dhexdiisa ama ha noqdo wuu sii wado wuxuu yihi
aladiina yacdiluuna fii xukmihim wa ahlihim wamaa walluu xukunkooda iyo ahligooda iyo inta ay mas-uulka ay ka yihiin baba waa intii dabagelaysay cadaalad falaysay waa kii nabi maxamed lahaa sal ll slam markuu dumarka uu ka hadlayey dumarow ilaahayna ka baqa waxaan arkay inaad idinku ugu badan tihiin cidda naarta gashe ah tilmaamuhu ku tilmaamay waxaa ka mid ahaa sababtaas wuxuu yidhi takfurna alcashiir waxa aad ku gaalowdaan odayga aad la nooshihiin oo waxa suurtagal ah buu yidhi inuu weligii iyo allihii intuu kuu samafalo weligaana aad tiraahid maalintaad isqabataan weligaa khayr kaama arag in aad tiraahdaan buu nabi maxamed yidhi sala allahu calayhi wasalam waa cadaaladii qofku inuu cadaalad falo oo uu ka adkaado waxa uu samaynayaa inay min allahi tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi idaa xakamtum faacdiluu haddii aad wax xukuntaan waar cadaalad la kaalaya buu leey nabi maxamed sala allahu calayhi wasalama nacam oo maxaa wadanadan aynu joogno ee reer galbeedka ah maxaa ka yeelay in ay si qayim ah qofku aanu marnaba aanu ka welwelin maxkamad marnaba aanu ka welwelin xaqiisa marnaba aanu ka welwelin in lagu xadgudbo maxaa keenay wadanadii muslimiinta ahaana maxaa keenay qofku marka uu maqlo booliis ama maxkamad uu maqlo in uu meelahu ugu necab yahay in ay noqoto idan halkaasi waa values waa qiyam waa qaabnooleed uu islaamku uu leeyahay cadaalad fala oo siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala idinku amray ku camal fala halkaasaanu ku jiraa baraarugu halkaasaanu ku jiraa barwaaqadu inuu qof walba inuu xaqiisii isagoo oon cidna aan ka baqaynin xaqiisii inuu helayo salى اllahu calى sayidina mxamed wعalى aalihi وصaxbihi وsلم وجazaakum اllahu khayra